waxaa saaka aroornimadii hore aanu kormeer iyo dhagax dhig iyo shaqo laga bilaabay aanu u tagnay mashruucii xanaanaynta xoolaha kulle runtii annagoo hawshii soo gudanay oo soo dhagax dhignay oo saxaafaddu kulle ay nala socdeen ayaa si wanaagsan oo dadkii deegaanka iyo muxuu ahaa wasiirkii deegaankii qaybtii bliiska iyo ciidamadii annagoo wada dhammaan kulle hawshaa soo dhamaysanay si qurux badan oo wanaagana waanu kusoo dhagax dhignay waanu kusoo dhammaanay haddii aanu kasoo noqonnay oo aanu soo gelayno koonaha magaalada markaa areada saylada baanu ku dhownahay ayaa waxaa nagu hor yimid niman hubaysan oo qoryasitaa oo markaa oo meeshaa nagaga hor yimid annagoo baabuurtii iska wadanoo magaalada soo gelaynaa kulley nimankaa ciidankii bliiska way ku baydheen way joojiyeen rasaas bay ku bilaabeen halkaa waxaa nagaga dhintay ciidamadii bliiska qaybta waxaa ku dhintay hal ciidanka kamid ah naga dhintay nimankii hubaysnaa oo ilaa imika wax ilaaliye waxay u socdeen aanu garayn hal qofna waa laga qabtay midna waa ka dhintay midna ciidamadii ku daba jireenoo wuu fakad buu ahaa intaasaa dhacday runtii waxaa aada iyo aad aan uga xunnahay marxuumka ciidanka biliiska ka dhintay oo runtii aan odhan karo wax allaale iyo wax yacnihii runtii biliis ahaan iyagu markaa ay yacni aan amni ahayn oo ilaalin may jirin waxaanay ku dadaalay weliba nimankaa inay in badan ku yidhahdaan in badanna ku yidhahdaan qoryaha dhiga oo dee markaa ay haybsadaan bal ujeedada iyo waxa ay u socdaan runtii kumay simin iyagii baa rasaasiyey iyagii baana askariga dilay sidaasay wax u dhaceen wixii kalena waxaan rabaa waxaan kusoo dhawi doonaa taliyaha qaybta iyagana baa ka dhigay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد waxaan ka warramayaa qadiyada saaka ka dhacday halkan saaka wasiirka ayaan socday xanaanada xoolaha kormeer baan ku soo marinay areada livestock iyo banka aroori oo laga doonayay shaqo laga sameeyo shaqo qaran bay heedo loo socday hawshaasaan ku ambabaxnay ciidan toban askari baan wadanay wax dhibaato oo aan la soconay jirin habeeraata يعني شقة عالية تدكي دجناح تهريجا ليفستوك يدارا ماشي نقص وين يجو على ما قوين لا تهاجن وهاوش ده هرم لو بوضح لي واحد ماشي لقى قبني على السعودي يدو كونتراكتور كي ماشي يسينه من السعودي ماشي مكان تقني هاوش يدي سي عمل سوق ودنا سوق بسنة كورمير كيجينا ورسوا مرة ماشي واحد دي دجن أجنبي بعد دجن وماشي ده ومشروع حولنا حيلا ماشي كسعودي لما دي عرب حتى دجن دقائق هذه الشيء هذه حتى قاعدين بين عدلا مرة يلا كوها الله بينا يوحي هاي وحالات كلنا مثل المجال هذا أفكار السوق اللي دي نمن هو بيسمى والوضعي على البنية وكل صعدة شيء دي أمكانين وحواج مكان واقع يعني هو بالنبر واقع وصلنا حيو صعدان يوحيين كبعد مركيان وباورتي كدقني أنا نمكي وتقني أنا كوني وارد استهاج وقريها هديك محا هيدين أساس بدل الوقت عندك إبليس وأنا محررين هذا مكان مري عبار باندو سبالين إني أنا قلبت يا ربح بوضع هرتي الوش واحد نقطة مركا هنا نكسر عنه ونكسر عنه واحد كسبها عنا نمكينا عن قبل نوسيا كسارة كبدنا عن بيشون مركيان كله واني وكون عسكري ما ضحك بتحبطه عسكري عيدا كم بليس كان أي حبط كل بفتين كبعد إنك حبط كل بفتين عسكري يسقينا حبط ما ضحك على قرفت وعيدا واجب كيسي وبسط لابد أن نويس إنتانين نوع قبلنا لابد قريسته لابد قروع كيا أيوم بيبقى كوستي واحد موديسي كنت رجال خلاص إن وجهتك فوق ما نقرني ما نقصني واحد أسعد ما نقرني لكن قف هو يسن ولي بقريسته وقاعد لابد قريسته وضل وين يواجه كيدا مسار روح النقطة فاللي ما كاسي واحد قبل دونا يوحى يفرد دونا كهرتك سمين إنت خسارة قبلانين هذا marka dee wax war la helo baa tara la helaa haddii xitaa ay xaaladii jiri lahayd waxbay helaan leh oo waxbaanu qiimeyn leh oo waxbaa dee ku talagal laga samayn lahaa dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca ciidanba laakiin wax dhibaato ah oo meesha ka taagnaa haba yaraatee may jirin marka waxa weeyaan arrinta qadiyadu saasay u dhacday imikana waxaa dhintay askari biliis iyo nin kale oo qoladii faytanka ahay qoryaha siiyay labadaba waa ka xunna aad iyo aad baan uga xunnay waa laba qof oo muwaadiniin oo dhintay midna qaranka u shaqaynayay كان كلامه واحد دوني يبدي وعد جدك السبعة على لكن وقف مواد المدينة غنية. مركب حلين. أنت كرد عليه ما أنت
ماشي النوع عساه هذا دي اسفه الآن هذه عيدا كان لو كان سونا ويا بليس كيل بيسنو تقوي وده نقولان وياه يعني أنا وحنا فرما بقف قوري استها انتهى واحد كان قبوا عسكري كان اللي بيسنين ودنتنا والله قلت لك إنه كل انتبه كل ده الكيس ودنتو وبدبادية ده الكيس أيون وقف كل اللي بيسنيو أنا النور رجعوا يعني كان قوري استها إنه ده بالحقيقة شنو شيء ده ولا إيه أو شيء ده والله هذا كل عسكري بليسين كل له أي صوتك شيء ساك تواش خدي أنا غير هوين wax kale yaa laga soo dhex saaray yaa la bolsaas gareyn oo siyaasad kale iyo riwaayad kale yaa cid cabadkooda xitaa soo gaadhay mas'uuliyadda way joogtaa wasiirkii uu joogay xanaanada xoolo oo wasiirda magaaladii jooga waa wasiir u dhuun dowladda quuradooda iyo hadalkooda baa cid yani ama beer sheeganaysa ha noqoto iyo ujeedooyin badan baa jira marka waxa weeyaan taasi waajibkii qaran ayaan lahayn baan fulinay arrintaasina waan ka xunnahay sidaa loo fahmo leeyahay billahi tawfiiq wassalaamu calaykum كتعسيدين هلدي حقيقي مدين حمك بليسكا سي حق ترى مساك بدل لو قلتي وانا كحنا هاي كنتي شركه دحي واحد ساكا حفلة بلارن قبل كتر دير كنت قبل واحد دقائق تدوينها لما باي كسو قيب قليل بان كوكباني كبر ديره halkii kaba dheeraan ku qabanay halkii seerayaasha life stock halka intii xaflad ballaaran oo dhagax aan ku sameynay kadib markii aan soo dhamaysanay ayaan magaalada soo galeysay gudoomiyaha gobolka sheegay markaa gudoomiyaha gobolka ay gaarigiisa ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka istaagay gudoomiyaha gobolka ay joojiyay markaa wuxuu yiri waa maxay saddexda askari saddexda nin ee qoriyaasta waan eegnay saddex nin oo qoriye sita yaa markaa dhinaca wadada meel xid ah galay saddexdii askari saddexdii nin ee dharka cadda askartii way u dageen runtii si warka ay igu sheegeen taliyaha Bileyska iyo gudoomiyaha gobolku iyo askartii Bileyska ahayd xabado badan baa ay rideen ciidanku waxba ma ridin waxay doonayeen inay qabtaan markii dambe nin ciidan ay xabad ku dhufteen kii ku dhuftay xabadana markaa xabad baa ku dhacday shirku caynkaas ay ahaa markan weydiiyay gudida gobolka iyo gudoomiyaha iyo taliyaha qaybta midna runtii ilaa hadda waxay ahaayeen cid garanaysa ma jirto marka kale dee baaritaankana waxa uu wadaya maamulka gobolka iyo taliska qaybta Bileyska jiray hadallo oranaya wasaaradda xanaanada xooluhu waxay iibisay dhulka deegaamada marka dadkan saakil leeyahay waxay ahaayeen baa leeyahay ciidan beeleed doonaya inay deegaamada difaacaan markii ogaadeen in wasiirka yimi hadalladaasina magaalada uu ku jira wasaaradda dhulka iibisay marka sababtaas saaka ciidan beeleed isuuriyay baa leeyahay ay ahaayeen ciidan beeleed kama inta saddex nin bay ahaayeen oo hubsita waxay seerayaashii ay waxaan jiray dawladdu la'aan jirtay baa la seeraya waana la dhisaya haddana waa la dhisaya waana la bilaabaya waa wax umada leh cid gaar ah oo liina ma jirto waynu wadaynaa saddexdaas meel ay ka socdeen la garan maayo inay u socdeen dhulka inay argagixisay ahaayeen iyo inay wax kale u socdeen waxaayeen shuftay ahaayeen qaarna waa la qabtay midna uu baxsaday marka waxa weeyaan hawshaas waxa waa hawl qaran weeye oo miisaaniyadda dawladda loogu daray xilliga in jirta ku jirta dawladda lacagta ku jirta sanadkan lagu daray si aynu dalka iyo xoolaha bacdama iyo xooluhu dhabarkeena dhaqaale aynu seerayaashii aynu sameeyno dadkuna aad iyo aad buu soo dhaweeyay odayaashii magaalada dhan way dagaalada joogeen cid aan joogin ma jirto saddexda nin ee qoriyaha sitay ee midna dhintay midna la qabtay midna baxsaday yumba ilaa hadda waxde la hayo oo fal lagu hayo jirto dadka intiisii kale saaka waxaan ku xaflad ballaaran runtii ay warbaahintu joogtay marka wasi waxa mid warka la sheegay wasaaraddu waxay ibsi seeraha la sameeyo waxa mid waxa ka jira ma jirto seeraha de seeraha lama iibin karo
وسير لما يجي سلك حولها داق سير لما يجي سير حولها داقية حولها كنا ورانا سير عروري وحوي ما هو حصب ما هو سيري عروري والله فيستك ماشي ما هو والله فيستك هو تكرمتي وماشي حوله داقية وي وارسمياش هدي كبر ديره ما كان شرح كسوسكية وتضبط الدارود اللايف ستوك والهانجين waxay ilaalin jiray qolooyin kale oo iyaguna barrier ka sameeyo si fiican u ilaalinayo runtii aad iyo aad u mahadsan ay ilaaliyeen oo beer wanaagsan ka sameeyo wax taraysa oo sidii loogu daayo way beer baa wax taraysa oo wax anfacaysa imaka wax kale oo deel la qabanayo ma jiro xalin seeraha lagu wareejiyo taar lagu wareejiyo marka taar lagu wareejiyo waxay wax tarayaan waqtiga abaaraha iyo wax tarayaan xoolaha waqtiga daaqana waa la xiriyaa waxa weeyaan wadana insha Allah ta'ala waxay ka mid tahay guulaha ugu waaweyn aan manfaca ee wax taraya xoolaheena wax taraya ee daaqeena wax taraya ee ganacsiga wax taraya saddexda ilaahay ka qaaday maakii ka qaaday oo muush cid soo dirtay waxa weeyaan wadkoodna waa galay ka dibina way dhacday aad iyo aadna waan xunnahay cidii ka soo dhimataba حوالي لبض بوحوين كانوا تليني بليس أبوها وجودنا أي واجبات كي قرنك كان كلام الشعبة يوها وإلى حد دم قرنا إنه بعدين كل ده وحنا ديني يعني. صح ويسلس. وحنا وجنا دول كدنت جود ما أنت دول كيالونا إن دتكو أي سكب بابانا بالقسطة أو دولة لحب برتة هراين أي لهانشت أي دولة بالهانشت أي السودان بالهانشت دتكو ما دقيستا دول كدنت جود نوال الدقية إما كصدق إن كل بعيد بين نقنية كل اللي وجاني يا واصل سجر واحد عرفت بلاران كرتا وحن دول كان عداه دول كان ياله معيد جرجرتي كل جيل كرتا شتاه دول كان عداه دول كوحوية واسيرياشي عروري قرن كاله عد قارو لهم مجرد واسيرياشي عروري ويان حرون تيدنا حكي لايف ستوكا أي كبديره ودوي سيرها وحلا مرينا تار بالا مرينا وجيدة دولة وحوية تدوينها وحوية مركي حوله أي عبارة النقطة ماشي بحث الجري دولة جاري مالي وحلا تدوينها طاقة تدال حولا نقطة لو كي ونكود أضويننا أروري أينا كأوضن حوله أينا نورا أروري حتى نقول أينا المنفع عن كبيرين بيرنا كبيرين حوله كله قيم سوري جريميس marka waxa weeye dadku waxa weeye xoolaha iyaynu u tabcayna halkan iyo qool caday iyo bancawl iyo gidigood waynu ka shaqeynaa waxaan doonaynaa dadka xoolaha aynu ilaalino yaalad way dadweynaha leh qaranka leh mujtamaca leh dawlad gaarina ma cid gaarina ma leh xukuumad gaarina oo specific ma leh ugu dambeyntii hadda qaybaha magaalada marka aynu ka dhex marayso way kacsan magaaladu waxa la leeyahay dad baa la laayay dad baa caynkan كل تنا ودتك ديجاك صدق nin maxay tahay fariinta u diraysan shacabka gobolka Togdheer hada waxa fariinta dadka u dirayna waxa weeye shilba horta dhacay wixii ka tahay geeri timaada waxa weeye waa laga xun yahay waan xad ma rabna geeri inay timaado laakiin waxa weeye nasiib darro cidii halka falka abaabshay deejid goynta samaysay ya dambiga ay khaladka ay lahayd dadka wixii way garanayaan fariinta nu farayna dadka waxaan ka shaqeynaa wixii dantooda iyo maslaxadooda waxaan qabtay ee farqada sameeyo boliiska way marka warta fariinta ugu horeysa waxaan u diriyaa boliiska oo fulinaya waajibaadkooda qaranka ninka boliiska ee dhintay waxaan leenahay ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo boliiska dhamaantiiba waxaan ka siinaa sabir iyo iimaan Allah ka siiyo kii kale dhintayna waxa weeye isaga laftiisa waxa weeye kullu uu ka dhintay inkastoo ilaa hadda aan boliisku sheegin ya meel uu ka ترسي هذا إن شاء الله وحفر يا إنه كم يدهم تدوينهين يا شعب كينا إسقنا وانا كحناي تدوينه هنا وحوي واحد بعطه أنت جيري بعتمي وانا حد بيلا يسأل لكن بعطه فربضون أنت كسي بدر ولا عيسى مشت